Asalaamu calaykum soo dhawaada asxaabta maanta waxaan sharxi doonaa film cusub oo lagu magacaabo Danger Close intaana muuqaalkeena u gudgalin waxaan ku xasuusinayaa inay muhiim noo tahay inaad muuqaalkan like saartid sidoo kale haddii aad tahay saaxiib nagu cusub fadlan nagu soo bir waan ku soo dhaweynaynaa waana kanaan filmkii daawasho wacan bilowga filmka koox diyaarad ah ayaa weerar ku soo qaadaya saldhigga magaalada balse taliyaha magaalada ayaa ka hortagaya kuwani waxaan ka mid ah ciidanka magaalada halkan ay wax ku dheelayaan khamaar iyo waxyaabo aan loo joogin kadib taliyihii ayaa ka kala tuuraya wax dhan ay dheelayaan kadibna uu ku xanaaqayaa wuxuuna ku dhiirigelinayaa uu ku amrayaa inay dalka difaacaan kadibna cadowgooda ay iska dhiciyaan taliyihii ayaa ciidanka amar siinaya ciidamadii dhammaantood way isdiyaargaranayaan si iska dhiciyaan cadowgooda waxay samaysanayaan dhufayso fara badan iyo meelo ay iskaga ilaaliyaan xabadda soo gaaraysa kadib ciidamadii waxaa lagu amrayaa inay ciidamadii baxaan oo iska dhiciyaan cadowgooda ciidamadii dhammaantood waxay sameynayaan inay soo tagaan taliyuhuna wuxuu siinayaa meeshii ay dagaal ka bilaabi lahaayeen oo uu tilmaamayaa saasna wax ku baxaya ciidamadii kuwani waa xayn ka mid ah ciidanka dagaalka galaya waxay ku nool yihiin duurka halkaasna ay ku sugayaan ciidamadii kuwana waa kuwii dagaal ku horumari lahaa ishana ku haya si aad filimka ula socotiin uu kugu socdana sidoo kale waxaa filimka qayb ka ah ninka loo magacaabo William asaguna wuxuu wataa ciidanka qayb ka mid ah wuxuuna u yahay taliye markaan ciidankiisa ayuu xusiinayaa talo si ay ugu guuleystaan dagaalka cadowgoodana isaga celiyaan ciidanka dhan wuxuu ku amrayaa inay isdiyaargareeyaan sidoo saaxiibadooda kalena ay garab u siiyaan ciidanka dhammaantood way isdiyaargaranayaan waxay samaysanayaan dhufaysyo si ay cadowgooda iskaga celiyaan iyagoo baashaal iskaga jira oo halkan jooga ayaa waxaa soo gaaraya taliyahoodii weynaa ayagana dhammaantoodna wuxuu ku amrayaa inay isdiyaargareeyaan weliba dagaal ayaa sugaya dhammaantood way isdiyaargaranayaan markaana waxayna qaadanayaan amarkii taliyahooda kadib taliyihii ciidanka wuxuu ku amrayaa inay baxaan dhammaantood weliba diyaaradda soo socota ay ammaankeeda ay sugaan magaaladan waxaa kusoo degaya uu leeyahay gabar weliba show qabanaysa yacni fanaanad sida u naqaano gabadhii ayaa diyaarad kasoo degaysa balse gabadhii markay magaalada ay soo gasho weliba ayagoo aad u faraxsan dadka dhan ayay wax u saxiixaysaa waxyaalo fara badan markii gabadhii ay soo degto ciidanka ayaa la kulmaysaa weliba taliyayaashii kuwa ugu sarreeyay ayay kula kulmaysaa meesha xerada ciidanka gabadhii hawsheeda ayay hore u qabsanaysaa markaana taliyihii ciidankiisa ayuu la hadlayaa weliba qaar ka mid ah ayuu si qaas ula hadlayaa wuxuuna ku dhiirigelinayaa oo ku amrayaa inaysan meeshan wax qallaasa aysan ka dhicin showgaana sidii qaabkii lagu talagalay uu ku dhaco kadib gabadhii hawsheedii ay iska wadanaysaa ciidankiina waxay dhegeysanayaan gabadha si ay u heesayso ayagoo iska baashaalaya balse ma oga in meeshan lasoo weerari karo dhanka kale ciidankan hadda horteena ka muuqda waa ciidanka cadowgooda waxay isku dayaan inay meesha soo weeraraan kadibna ay ka geystaan khasaaro fara badan balse ayagana ciidan kale ayaa duurka ugu jira ayaguna ciidankaas ay goobanayaan kadib meesha waxay ku arkayaan waxyaalo fara badan iyo bombo waxyaabo la xiriira ciidanka kalena ayaguna duurka ayay ku jiraan iyagoo wax war la iska warqabin ninka William ahaana ciidankaas ayuu wataa oo waliba duurka ayuu gees kale uga jiraa xaynta kalena ciidan kalena ayaguna wax ku jiraan duurka qayb ka mid ah halka ciidan kalena ay showga ilaalinayaan kadib meeshan xeebta ah ayaa la iska hor imaanayaa kuwana waa kuwa cadowga hadda horteena ka muuqda waxay gagadayaan wixii duurka ku jira inay baabashaan kuwana soo xaragoonaya ee kuwa kale is arkaya kadib meeshii xabad ayaa ka wada bilaabanaysaa kuwii cadowgooda ahaa ayaa markaa xabad ku bilaabaya balse nimanka cadowga ahaa waxay darsanayaan gurmud ay darsanayaan waxay isku dayeen inay gurmud darsadaan balse gabadhii fanaanada ahayd ilaada showgooda ay wataan nimanka kalena ciidanka kalena way iska baashaalayaan wax duurka ka socda ilaa hadda ma oga kadib waxay imaanayaan bawr yar balse wuxuu u imaanayaa taliyaha wuxuu dhagta u sheegayaa in meesha duurka uu ka dhacay khalalaaso kadib taliyihii wuu soo baxayaa maadaama ay ciidanka la soo weeraray dhanka kale ilaa hadda nimanka cadowgooda waxay ku hayaan dabagal maadaama ay rabaan inay meesha ku baaba'ashaan kadib waxay imaanayaan meel daashkii ayay gudaha usoo galayaan balse daashkii markay waxba ka waayaan duurka ayay hore usoo galayaan waxay arkayaan meesha bambooyin fara badan balse bambooyinka wax dhammaa soo qaadanayaan weliba duurkii ayay hore usoo galayaan ilaa hadda waxay goobayaan nimanka cadowgooda inay arkaan meesha ayagoo ka dawareegaya ayaa markaa la soo weerarayaa balse nimankii cadowgoodaha marka way ka guulaysanayaan waxay darsanayaan gurmud ayay marka la wadarsanayaan waxayna si toos ah ula xiriirayaan meeshii ay ku lahaayeen saldhigyada kadib nimanka kale waxaa la ogeysiinayaa in meeshii lasoo weeraray kadibna meeshii ay xabad ka socoto kuwan kalena waxay darsanayaan gurmud maadaama kuwaas ay darsanayaan gurmud kadib waxay la xiriirayaan meeshoodii kadibna waxaa loo soo dirayaa nimanka kale oo gurmud kale waxay loo dirayaa gantaallo iyo waxyaalo fara badan ayaa rabaa markay ku fasaxaan kadib waxay rakabayaan gantaalkoodii oo ay ku fasaxayaan xabad weyn oo miisaan leh ilaa ay gaarto meeshii lagu talagalay waxay xabadda socotaba waxay tegaysaa meeshii dhexbartankii hawdkii kadib ciidanka ayaa ku baaba'aya meeshii weli nimankii showga ayaa hayaan balse markaana waxaa soo gaaraysa akhbaar in caradii lasoo weeraray markaana waxaa ka dhacay kabteeda maaragtay
wax walba meesha ka dhacaya waxaa lala socodsiinayaa taliyihii, balse taliyihii wuxuu dejinayaa khidadii meesha ay ciidanku uga badbaadi lahaayeen, cadowgoodana ay ugu argoosan lahaayeen. wax walbana oo la wadaagaya, balse nimankii cadowgooda ahaa xabado fara badan ay kusoo rideen, balse nimanka markaan waxaa ka hartay xanyar. waxay markaan dalbanayaan gurmad, ayaga rasaasto ayaa ka dhamaan rabta, way kusoo fara badanayaan. ciidanka kalena William iyo asxaabtiisa kale duurka ay kusoo jiraan ilaa hadda uma imaan. kuwan kalena meeshan ayaa lagu gumaadayaa, waxay dalbanayaan gurmad in laga soo gaaro. kadib ninkii William ahaa ayay la xiriirayaan si uga soo gaaro dhammaantood, balse nimanka markaan waxaa ku jirta naf yar oo ciidanka dhammaan waa laga baabashay. ilaa 3 qof ilaa 4 qof ayaa markaan ka hartay, xabadka dhulka ay ku hayaan. waxay la xiriirayaan saldhigyadoodii, waxay leeyihiin meesha rabta inaan ku baaba'ano, naga soo gaara. kadib naagtii waxaan dhihi tagay fanaanadii waa la qaaday maadaama meesha ay ka dhacay qallaaso. kadib diyaaradii ayaa lagu ciyay oo kabtida ay ku laabatay. nimankii cadowgoodna way soo bateen, markaana dhaawac fara badan ayaa soo gaaraya. nimankii waxay iska caabin sameeyaanba, weliba iska caabintooda way samaysmisi weeday, wax walbana way la wadaagaan. markaan ciidankoodii ayay u sheegeen saldhigii meeshaan inay ku baabi'i rabaan, balse taliyihii waxaa u dirayaa markaan gurmad. William ayuu la xiriirayaa, wuxuu leeyahay nimankasta laga gaaro. meel walba ayay gelayaan, balse nimankii ma ay ka harayaan cadowgooda, way kusoo dhow yihiin. markaan dhulka ayay iska jiifaan, maadaama hadday kor ku imaagaan cadowgoodu way ka faa'iidaysanayaan. markaan waxaa loo dirayaa gurmad si ay meesha uga soo badbaashaan. asxaabtii kalena way la xiriirayaan si ay meesha uga soo badbaadaan. kadib diyaarado ayaa loo soo dirayaa, balse diyaaradihii waxay weynayaan meeshii ay ka joogaan hawdka, maadaama cadowgii ayaga dhammaantood ay hawdka ku jiraan. dhaawac fara badan ayaa soo gaaraya ciidankii. kadib waxay sameynayaan inay asxaabtooda kale ay la xiriiraan, balse nimanka kalena dhulka ay ku jiraan, ayaguna isma arki karaan. waxay kala dalbanayaan in loo keeno rasaas, maadaama meeshii ay uga dhawaataan rasaastii ay iska bixi karaan meesha waxa ugu maanayaan roob fara badan. waxay dalbanayaan in loo soo saaro rasaas diyaaradda. kadib rasaastii iyo wixii la soo haweynayaa, waxaa la soo saarayaa diyaaradiina markaan ay soo caga qaaday, waxay soo aaday dhankaasi meeshii hawdka ahayd. nimankii ayagoo dhulka hawdka maraya waxay arkeen diyaarad korkooda maraysa. marka diyaaradda arkaan waxay samaysanayaan in qoryahooda ay la baxaan. kadib qoryihii markay la baxaan waxay ku tuurtuuriyanayaan diyaaradii, balse diyaaradii markaan khalqal ayaa soo gaaraya, iyaguna diyaaradii waa iska xabadinayaan. nimankan kuwii kale ayay la xiriirayaan, weliba waxay leeyihiin inma soo gaari karno meesha, sababtoo ah meelaad hawdka dhulka ka joogtiin ma naqaano. waxay u tuurayaan bahal yar oo qaacaysa si ay u aqoonsadaan meesha joogaan. kadib diyaaradihii way aqoonayaan meesha dhulka ay ka joogaan, waxayna u tuurayaan rasaastii ay dhulka ugu daadiyaan mar allaala markay ogaadaan goobtoodii. kadib duulihii diyaaradda wuxuu sameynaya inuu diyaaradda usoo dhaweeyo, markaasna uu soo daadiyo rasaastii oo ku jirta sanduuqyo, balse rasaastii ayaa si fiican kusoo gaaraysa. diyaaradiina way iska laabanaysaa markaas, maadaama hawsheedii diyaaradda ay gudatay. kadib nimankan waxay la xiriirayaan asxaabtoodii kale, dhammaantood rasaastii ayay qaadanayaan markaan ay rabaan inay cadowga ay ka argoostaan. weliba markaan waxaa la isku adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan, weliba mid walba midka awood badan yahay ayay markaa isku gurayaan. waxay la xiriirayaan asxaabtoodii kale si ay uga soo gaaraan meeshaan, iyagana inay hub haystaan. kadib waxay hortooda ka arkayaan meel yaroo boora, balse waxay isleeyihiin markaan meesha cadow ayaa kusoo maakaman. mar alla markay isleeyihiin xabadda ku fura, balse asxaabtoodii kale weeye. markaana way ku farxayaan maadaama garabka ay siiyaan. dhammaantood markaan waa isgarabsanayaan, weliba waxay rabaan inay cadowga markaan baaba ay ka dhigaan. iyagoo meesha taagtaagan ayaa markale lasoo weerarayaa, balse waxay xarunta adeegsanayaan in mar labaad lasoo weeraray aysana gurmad kale ay ugu baahan karaan. wax walba taliye ayaa lala ogeysanayaa oo meesha ka dhacaya, balse taliyihii iyo markan kale wax isqabanaya labada taliye waxay leeyihiin naga joojiyay waxaa madiin meesha nagu baabi'inana, haddii gurmad ku baaba'o hubkan ku baabi'inana. kadib calaa itaxaal waxay dirayaan taangeel fara badan oo meesha ay ku caabi karaan ciidankooda. markaan ciidankii waxa soo gaaray dhaawac fara badan, weliba niman madaxa ayaa ka dhaawacmaya. ayagoo meesha dhufays uga jira ayay waxay arkeen qof soo gurguranaya. ninkan haddii aad xusuusid waa ninkii markii tiimkii watay aan ku dhahay niyadda ku qabo, ninkan keligiis ayaa tiimkii ka haray. markaan waxaa soo gaaray taangiyaashii faraha badnaa, weliba waxaa la ogeysanaya saldhigii inay soo gaareen taangiyaashii meeshii lagu talagalay, weliba aysan ku socdaan. markaan way faraxsan yihiin ayagoo meesha dhufays uga jira oo isdhahaya ninka dila, balse ninkii wuxuu noqonayaa ninka saaxiibkood ahaa. kadib waxay sameynayaan inay xabadda ay ka daayeen, balse wejigiisa ayay aqoonayaan, balse way soo qaadayaan saaxiibkood. waxay u keenayaan nimanka kale oo dhaawac ahaa. ciidanka kale gurmadkaana wuu usoo dhaweeyaa. markaan waxaa lagu amraya ciidan kale inay meeshooda ay joogaan, aysan ka bixin maadaama uu gurmadka usoo socdo. markaana waxaa la dabiibayaa nimanka dhaawac ahaa oo meeshaan ma ka baxayaan. kadib taangeeshi ayaa meesha soo galay, balse cadowga wuxuu arkayaa in meesha lagu soo galay, balse cadowga wuu ka baxayaa. nimanka kalena halkan ayay ku jiraan maadaama riyooyin iyo waxyaalo fara badan ay iska jiraan. balse nimankii cadowgooda markaan waxay sameynayaan inay gurmad darsaan, waxay kusoo tuurayaan xabad weyn ay kusoo tuurayaan, balse xabadii waxay saameynaysaa ciidankii. markaan ciidankii waxaa soo gaaraya
jab fara badan ayaa soo gaaraya, niman fara badan ayaa meeshan uga dhaawacmaya, balse nimankii way is adkeynayaan, dhaawacoodii wixii dhammaa way dabiibayaan. ciidankii markaan waxay dagaalamaanba oo niman xabad ku dhiftaan, markaan waxaa xabad lagu dhufanaya saaxiibkood ayaa sujuudda laga calaamadinayaa, balse dhammaantood waa arrinta way kar murugoonayaan, waxay sameeyaan ayay qool yihiin. Markaan weliba waxaa lagu ridaya markaan hoobiyaal, markaan xaaladda ayaa ku xun, dhammaantood markaan dhaawac fara badan ayaa soo gaaraya, cadowgoodina markaan uu kusoo laba celinayaa. dhammaantood xabadda ayaa ka dhammaanaysaa, nin walba wuxuu samaynayaa inuu mid biskoolad qaato, midna uu faas soo qaato. kadib taangiyaashii ayaa u imaanaya, halkaasna cadowgii ayaa lagu baabi'inayaa, cadowgiina oo cararaya, weliba gurmad ayaa u imaanayaan meeshaas. halkaasna waxay u guulaysanayaan cadowgoodii ayay baabaha ka dhigayaan. markaas dhammaantood markaan waa ay guulaysanayaan. filimkiina halkaan ayuu ku egyahay.